dhawaada qodobada wararkan idin hayna maanta kuwada ugu waaweyn. سعيد عبد الله الدني oo loo doortay madaxweynaha maamulka Puntland 5 sano ee soo socota hogaamin doona maamulka Puntland. doorashada xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland oo goordhow ka bilaabanaysa magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. Booliis si gaar ah lagu wado in lagu wareejiyo sugidda ammaanka magaalada Muqdisho. taliska booliska degmada Afgooye oo ka warbixiyay howlgalla lagu soo qabtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Maraykanka oo sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab uu ku dilay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose. dowladda Turkigana dadaal waxay ugu jirtaa sidii loo soo celin lahaa wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland. ergooyinka kala socda ururka Taliban iyo dowladda Maraykanka oo ku kulmaya dalka Qatar. iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo tagay wadanka Shiinaha. kusoo dhawaada dhageystayaal warkii oo fidsan aynu ku bilownay magaalada Garowe maanta waxaa ka bilaabatay doorashada xilka madaxweynaha maamulka Puntland oo ay u tartameen ilaa iyo 2 iyo ama waa muddo musharaxiin gaaraya 22 musharax ugu dambeyntiina waxaa ku soo baxay Saciid Cabdullaahi Dani oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota. wariyahana Cumar Maxamed Soomane ayaa warbixintan nooga diyaariyay. doorashada madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka qabsoontay xarunta golaha wakiilada ee magaalada Garowe waxaana ka qayb galay 22 xubnood oo u tartamayay jagada qabashada madaxweynaha 5 sano ee soo socota. xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi oo ka kooban 66 mudane ayaa waxay codkooda qarsoodiga ee madaxweynaha Puntland ay ugu soo doorteen Saciid Cabdullaahi Dani oo Puntland majaraha u hayn doona 5 sano ee soo socota. wareegga labaad ee tartanka doorashada madaxweynaha Puntland waxaa isugu soo baxay Saciid Cabdullaahi Dani, General Asad Cusmaan Cabdullaahi Diyaano iyo Faarax Cali Shire. ha yeeshee doorashada oo loolankeeda uu ahaa mid aad u adag waxay soo gaadhay wareegga saddexaad oo ay isugu soo baxeen Saciid Cabdullaahi Dani iyo General Asad Cusmaan Cabdullaahi Diyaano waxaana natiijada doorashada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed. natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota. kow General Asad Cismaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod. laba Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu helay 35 cod. 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano oo soo socota 2019 ilaa 2023 ama 23 mudane Saciid Cabdullaahi Dani. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo deganaan kuna dhacday si nabadgelyo ah. waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland ciidamo iyo rayidba. waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas'uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba. madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa isaguna u mahadceliyay madaxweynaha cusub ee la doortay waxaana uu sheegay in isbeddelka xilligan ka jira Puntland uu horseedi doono horumar ay tiigsanayaan shacabka iyo madaxda ugu sarreysa maamulkaasi. waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano soo socota mudane Saciid Cabdullaahi Dani. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madax ku-xigeenka Puntland ee muujiyay shaqo hufan oo wanaagsan. tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka
dadka reer puntland iyo golahooda baarlamaanku. cabdiweli gaas ayaa sheegay in tallaabada isbeddelka puntland ay horsoodi doonto horumar. Siciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha cusub ee maamulka puntland ee 5 sano soo socota hogaaminaya maamulkaasi, ayaa sanadkii 2014 waxa wasiirka qorsheynta uu ka ahaa dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo 2017 uu soo sharaxay xilka madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana xilligan xarunta baarlamaanka puntland si toosa uga socota doorashada madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo ay u taagan yihiin 11 xubnood. warar goordhow idaacadda kulmiye ee heshana waxay sheegayaan in wafdigii ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya ee ku xanibnaa magaalada caasimadda ay xilligan u dhaqaaqeen dhanka iyo magaalada Garowe ee caasimadda maamulka puntland. waa mahadsantahay Cumar. boolis gaar ah ayaa lagu wadaa in lagu wareejiyo sugidda amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Canshuur. sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho oo ay marar badan ka dhaceen weeraro qaraxyo ah iyo sidoo kale dilal shakhsiyaad loo geystay ayaa lagu wadaa in mar kale ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya si gaar ah loogu wareejiyo maalmaha soo socda, sida ay KNN u sheegeen saraakiil dhanka ammaanka ah. ciidamada ayaa xilligan waxaa gabagaba u ah tababar uga socda xirooyin tababar iyo sidoo kale stadium Muqdisho, waxaana ay yihiin dhalinyaro laga soo xulay degmooyinka gobolka Banaadir. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Bashiir oo maalmo ka hor warbaahinta Muqdisho kula hadlay ayaa sheegay in ciidamada uu tababarka u marayo heer gabagaba ah, waxaana sida lagu waramayo ciidamadan la dhigi doonaa wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana qayb ay ka tahay qorshaha lagu sugayo ammaanka Muqdisho oo ay iska kaashadeen xukuumadda iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir.